kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen Soomaalida ku nool dalka Kenya ayaa ahaa mid loogu duceynayay Allah u naxariistay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqii magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. wasiirkii hore ee wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini ayaa ugu horeyn ka hadlay kulanka. injineerka waxa weeye si fiican baan isu naqaanay, si fiican baan muddo dheer isula shaqaynaynay. wuxuuna ahaa nin wadanaya oo Soomaali ah, Soomaali haduu jiro Soomaali ah, kuna shaqaynayay Soomaalinimo ku shaqaynayay, iskuna dayay shaqada uu hayay ama hawsha uu hayay in uu u tuso dadka Soomaaliyeed inuu u noqdo mataal gaar ahaan maadaama waqtiga ugu dambeeyay uu hayay caasimadda, inuu caasimaddii Soomaaliyeed nin matalaya oo ummadda Soomaaliyeed u dhaxeeya inuu ahaa ku shaqaynay. sidoo kale senator Samsam Daahir oo kamid ah xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa iyaduna ka hadashay kulanka baroordiiqda ah. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. maanta waxaan meeshaan ugu nimid inaan u duceyno injineerkii walaalkeen ahaa iyo tiimkii la shaqeynaya musiibadii ku dhacday, in maaragtay aakhire Ilaahay kitaabkooda midigta ka siiyo, annagana saantaan soo qaadnay oo meeshaan aan ugu nimid Ilaahay ajir oo naga siiyo. injineerka iyo tiimkiisii adduunka meel kasta looga duceeyay, Soomaaliya oo dhan u duceysay, in adduunka laga jecel yahay ahay, aakhirana mid laga jecel yahay Allah ka dhigo. wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Cumar Islow ayaa isna goobta hadal ka jeediyay. runtii kulankan isugu nimid waa kulan runtii aan ugu duceynayno walaalkeen injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo ahaa gudoomiyihii gobolka Banaadir ahna ku dhigay magaalada Muqdisho, iyo dhammaan gudoomiyaashii iyo agaasimayaashii iyo lataliyaashii la geeriyooday. runtii ficilkaas oo ahaa ficil aad iyo aad u xun oo xandaro ah oo runtii dad haldoor ah ay ku dhinteen, isla markaasna ishii gobolka Banaadir iyo qaranimada Soomaaliya meesha ay ku burburtay. gudoomiye Yariisow inta dhinta Allah u naxariisto. gudoomiye wuxuu ahaa qofan aad iyo aad isugu dhownahay saaxiibaanahay walaha xukuumadda aan isku jirnay, kadibna gudoomiye gobolka wada shaqaynteeni iyo xiriirkeena aad ugu fiicnaa. inta aan ka aqaano wuxuu ahaa nin aad iyo aad u afkaaban, nin aad iyo aad u xishmad badan, wuxuu ahaa nin dadka qadariya, qofka mas-uulka iyo qofka shacabka ah iyo dadka danyarta qadariya ayuu ahaa. ugu dambeyn danjiraha dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Ambassador Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa ka sheekeeyay aqoontii uu lahaa Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqii magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow. waxaan qabaa marka tacsidan injineer Yariisow aniga nin iga badiyo waa yahay la tahay, isagoo siyaasad ku jirin, isagoo caadi ah ayaan horay isla soo shaqeynay. dadku waxay u maleeyaan dadku inay siyaasadda uu ku soo booday, ninkan muddo badan buu halgan ku soo jiray, u soo halgamahay. Somali Concern buu madax ka noqday oo u dooranay inuu Somali Concern hogaamiyo. Somali Concern oo ogtihiin doorka ay ka qaaday wadankan in la xoreeyo markii Itoobiya ay wadanka qabsatay, doorka ay ka qaadatay aad ogtihiin. injineer Yariisow marka wuxuu ahaa nin u soo taagan qarannimada Soomaaliyeed. biographigiisa marka la aqrinayo waxa laga booday wasiirka, wuxuu ku bilaabay wasiirka lacagta ayuu noqday 2010 wasiirka lacagta. marka wasiirro isku xiga ayuu soo noqday, darajada ka sareyso ayuu soo noqday. nin wanaagsan oo qalbi wanaagsan oo afgaaban oo dadka jecel oo dadku isugu mid yihiin ayuu ahaa. Umar Caaqil, SNTV, Nairobi.